السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شرفت الصوماليات كسر هذا برنامج نولا شربتها إن وحن ربا مشارير إن أنا هجاك سدا هذا إن شاء الله وحن ربا ولا الكي ولا شيء حداد كل حنون قبتي سكر قبتي ذكر قبتي كوليسترول قبتي إن مشاري ذا هجاك سديد مشاري أد وأنا أقسم واي عافي ماضله قرأ في أنا كون غني زرنتي شاه إيو قحوة إيو متقن عنجيرة هيل بلود دري إيو وحاصر مبهند مربع هذا حنون صنت هواي حتى حنون صنين لفتي عافمات قبتي أنت فيري هيلثي marka insha allahu diyaarso mar baad xanuunsan tahay xataa isku haleyn qof kale adiga antaada ku hagaagso taasi waxaa weeye cucumber baad arkaysaan qajaarka weeye marka insha allah halkaasaan ku daadinayaa waa shiidii hadhow dambe insha allah bal fiirsada idinka okay waxaa ku xiga geedkaas bansili la yiraahdo bansili markaan iska dhaqi ka bacdi ku xiga halkaasaan ku ridayaa walaalaha sharafta waxaa ku xiga سلريغاس geedka salariga ku xiga ku rid waa mishaari caafimaad leh insha allah toon waay walaalaha sharafta leh mishaari waxaana meeshan ka hagaajinayaa waa caafimaad loo keliyaha u fiican toontii baan ku riday waxaa kaloo ku xiga walaalaha sharafta leh xabag waay baashas waa xabag cadaad laakiin hadda kuma dari kara sababta oo xalaan hilmaamay inaan biyo ku ridaay iyadoo jilacsan mashiinta ku rido laakiin hadda kuma ridi karo marka xabag cadaad afrika u dirsa haddaad keliya ka xanuunsan tahay waa fiican tahay marka laakiin hadda kuma daray insha allah walaalaha sharafta le waxaa ku xiga bahal qamadi ay igu xigta waataas dee waa ii karsaneed qamadi waataas meeshaad igu jirta iyadoo badan iyadii bahal yirahda lentis bahal yar digir oo green oo iyadana lentis loo keliya u fiican aad iyo aad marka tanaan ku daraya marka qamadidan marka ay kugu adkaato waay qamadidaas ku darsanaya marka kabacdi isku shiidaya bal eega idinka mar haddaad keliya xanuun qabtid cuntadan bishaari aad u wanaagsan waaye walaalkay walaashay diyaarso insha allahu taala ilaahayna bari caafimaadka ilaahay subxaana waa soo celinaya waa kaas baashi oo shiidiisa aan ku daray dhammaan kabacdi katalkan sii kulaystay biyo kuleylaa ka buuxo biyahaasaan ku darayaa mar haddaas keliya xanuun qabtid fadlan waan ku baryaa mishaaradan aada u macaan oo healthiga diyaarso daboolkii iga dhumay laakiin kaasaan iska saarinayaa imale den soo maha marka waakaas walaalaha sharafta leh waa diyaar mishaaridii marka xoogay waad arkaysaa xumba yar ay leedahay xumbadaas yaraan ka daadinayaa marka waa diyaar cusba ha ku darin saliid ha ku darin sokor ha ku darin siban udhegi sokor ha ku darin markaan keliyahaada beerkaada colosterolka sokorta dhikarka wax kasta u fiicanta cuntadan markaan dhegeyso adig dhakhtarka babar o'neil la yiraahdo oo australian u malaynayaa markaan waxyaala laisku dabayay ka mid tahay insha allahu tacaala waxaa yar ka bacdi waxaan ka daadinayaa xumbadaas yartaa koobkan ku shubanayaa alxamdulilah bismillaah mishaarida waa taas walaalaha sharafta waa diyaar waad arkaysaa diyaar waaya xabad rooti aan u hagaagsanaa waaba qurcadi waa diyaar koobkaas markaa dambe kan kalan ku shubanayaa maasha allah waay markaan bismillahan leenahay qof kastoo soomaaliyeed waxaan kula talinaa walaalkay video hadduu kusoo gaaro u sii gudbi ummadda soomaaliyeed man dalla calaa khayrin ka faacilihi nabi sal allahu alayhi wasalam uu yiri qofkii khayr dadka asoo suubiya oo kalo walaalka oo xanuunsanaa laga yaaba dhiikarka ku kacsan yahay bahashan hadduu cabo inuu dhiikarka ka dego ajiraad ka heshid sokorta ay ka degto ay ka baxda sideed oo kale waabay ka baxday alxamdulilah sokorta ka baxda hadduu mataqaanaa dhikar qaba saasoo kale bogsoodo keliyihii sida oo kale ay usoo noqdaan markaan dadkii waagii anigaan i yimid oo xagga keliyaha maadaama ka warrama waxaan dhahay cuntadan diyaarsada oo is-ilaaliya oon is-ilaalinin oo dhe war waxaan wax dhadhamaya maaha dhahay waxay ku dambeeyeen keliyihii in loo dhaqo marmar haddii wiilka ay hor imaada wuxuu yidhi cusmaanow
inaan ku dhegeysta ay ugu ficnaan lahayd. mashiinta markii laygu rakabo yiri dhibkeeda anigana waa idiin sheegay ayagoo dhici rabo 24% maraya oo dhakhtarka ugu dhaa mar dhow dialysis galaysaa yaan aan baraarugoon kor oo kacay oon bilaabo markaa inaan cusba iyo saliid iyo sokor iyo bariis iyo baasti waxaan kulle daldalaya aan joojiyo cuntadaan bilaabay ilaa hadda keliyada marka hadda inay kor soo kaa hoosumay dhicin marka weli waa liitaan oo hadda markii ugu dambaysa waxaa dhahay GFR waxa lay ku cabiraan yani filtration rate oo keliyaha markii dhiigga laga qaada waa keliyahada iga baaraad leedahay dhiigga laga qaada marka waxaa lagu sheegay intay shaqeynayaan percentage hadda waxay marayaan 29 alxamdulilah marka laakiin de haddaan aanan isdaryeelin marna ay dhici lahayn 29 waa waxa aad u liitago 15 waa lagu dhaqa keliyaha 4 sanaan hadda saan ku socdaa 2020 marka la sheegay waay dhiigkarkana 2009 liigu sheegay walaalaha sharafta idin sheegay intaas uu soo cunay kaniina iska qaadanaya hal xabo hadda dhiigkarkaada markaas kacaya oo mashiir soo gadito oo markaas kacaya dhakhtarka u tar waa kugu daraya kaniinka waa in lagu daro ani waxay inaan ku noqdo kaniinka lagu daro laakiin Soomaaliya iska taqaana halkan aan qaadanay alxamdulillah nin feer weynanaha markaan laakiin markii dambe xaqiiqda marka dhakhtarka itaabsiyaan fadhi ka kacay qadarkaas maalinkaas waa ninkan dhahay waa 60 jirkii malakamood ka xariis wax kasta saar u lugaya markaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna li nafsika alayka haqq naftaada xaq bay ku leedahay xaqeeda si waxaan wadnay program dadka madowga faqiiriin ma u liitaan markii loo fiiriyo nimanka cadaanka casaanka yani white community brown community faqiiriin waxaan u dhahay waxa weeye qofka soo xanuunsan wax aan heelta cunaya ma shaqeyn kara marka ileen dhaqaalaha maxaa isku imaada markaad caafimaad qabtid wey markaan qofkii waa jirinayaa isma daryeelaya 60-70 waa dhintaa lagu leeyahay ama digal waa xanuunsan sarruur saariya bas qofkii isma daryeelaya raggaanaan u yimid hadda jimay suubiyaan waa ordaan cunto heeltay cunaan waad arkaysaan 80-90 ay gaariyaan qofka bini aadamka ah wixii wanaagos kaga dalan karti waa loogu daydaa wixii xumaanahana waa la iska daayaa markaan waxaan diinteena hore noo bartay laakiin waxaan iska nahay dad qaafiliina nabiga sallallahu alayhi wasallam ogtiin exercise qof ka badnay mala Aisha radiyallahu anha waa kii la tirtamay markaan asxaabtu waa kuwii oo yani ku lagdamay masaajidka dhexdiisa ku lagdamay oo akas fardaha waa ku ceerin jiray laakiin dadkeenan damba waxaa la iska war waqti uma hayna marka haddaad waqti u haynin abti diyaar u noqon marka inay keliya ku fariistaan oo dhiigkarka kugu dhaco sokorta kugu dhacdo aad xanuus iska fadhiiso oo shaqaysan waysid markaan weligaa marka madow haddaa tahay markaan qaaradda Afrika fiiriyo iyada ugu faqiirsan qaaradda Caribbean-ka fiiriyo iyada ugu faqiirsan waxaan maxay yeelay dhowr reason hor u soo sheegnay laakiin hadda maanta waxa way caafimaad darrada waay caafimaadkaada ka fikir walaashay oo ku bariya iyo walaalkay waliba dadka Yurubtii qurbaha jooga ahaan iyo Mareykanka qurbaha jooga is ilaaliye taxi saaran tahay security fadhida taragad saaran tahay bas saaran tahay isma ilaalinaysid marka halis ilaaliyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bariya ummadeena qofka xanuunsan inuu caafiyo fadlan waxaan ka codsanayaa fiidiyogan si gudbi ummadda yuusan ku dhaafin marka daawatid u si gudbi qof alla qofka taqaan u gudbi adna ajraad ka helaysa barakallahu fiikum wa jazaakum allahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh